بسم الله الرحمن الرحيم qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Iran oo ka warbixiyay qorshaha wadankiisa uga degsan samaysashada hub nuclear waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli wadaxaajoodidii Mareykanka iyo Iran u dhaxeeyay ay ka soo baxayaan warar kala duwan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhankiisa sheegaya in isagu uu yahay qofka go'aaminaya wasiirka u dhigaya heshiis la gaaro Iran ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ayaa sheegaya in ay soo rideen diyaarad nooca drone-iska oo Israa'iil ay leedahay waxay kaloo ciidamadu sheegeen in maanta maraakiib kale ay u fasaxeen inay ka gudbaan marinka Hormuz kadib markii ay raaceen habaraacyada Iran ay dejisay marinka Gaza dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay duqeyn Israa'iil ay ka geysay halkaasi dalka Shiinahana ilaa iyo 17 qof ayaa la la'yahay jaaniyo cirib meesha ay dhigeen kadib daadad iyo roob mihigaan ah oo ka da'ay wadankaasi dhamaan wararkan qodobo kale iyo falaqayntii iyo wixii warah ee soo kordhay inta hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa kiisa uu diyaar u yahay in uu caalamku xaqiijiyo in aynan baadi goobaynin in ay sameystaan hub nuclear isla markaasna inay gobolka bariga dhexe xasiloon darro ka dhaliyaan wuxuuna intaas ku daray Israa'iil weeye cidda xasiloon darro amni ka sameynaysa gobolka bariga dhexe oo raadinaysa inay meel mariso waxa ay ku tilmaanto Israa'iisha weyn qorshe la xiriira isla markaasna ka shaqeynaysa inay gobolka ku jiido dagaal madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa asmadankiisa sheegaya in heshiis la gaaro wadanka Iran ay asaga ku xiran tahay oo xaqiiqsan doono in uunan marnaba qaadan doonin heshiis aanan wanaagsanayn mar uu la hadlayay mid kamid ah telefishinada Mareykanka in heshiis la gaaray in kale kulli ana igu xiran tahay ayuu u sheegay mid kamid ah telefishinada Mareykanka hadii uu warkaasi soo baxo waxa uu noqon doonaa oo kaliya war wanaagsan u malayn maayo yiri heshiis xun inaan galayo Trump ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo heshiiska uu sheegayo ugu yaraan 33 markab ayaa loo ogolaaday inay maraan marinka Hormuz 24 saac ee la soo dhaafay iyadoo ogolaashahaas laga helay ciidamada ilaalada kacaanka qaybtooda badda sida laga soo xigtay warbaahinta rasmiga ee wadanka Iran maraakiibtaasi ka gudbay marinka Hormuz ayaa qaar waxay wadeen shidaal qaar waxay ahaayeen kuwa shaxnadaha qaada qaarna waxay ahaayeen kuwa ganacsi sida bayaanka lagu sheegay marinka Hormuz waxaa si xoog la gacanta ugu hayo xogtiisa dhan haya ciidanka badda ciidamada ilaalada kacaanka kadib markii amniga xumo ay abuureen dagaalka uu Mareykanka garwadeenka ka yahay ee ka dhanka marinka Hormuz 5 Falastiiniyiin oo ay ku jiraan 3 ka tirsan hal qoys ayaa dhintay qaar kalena way dhaawacmeen kadib markii ciidanka Israa'iil ay duqeeyeen marinka Gaza xilligaas oo ay ku tilmaantay uu ku tilmaamay ururka Hamas uguna baaqay dhexdhexaadiyaasha inay mas'uuliyad ka saaran tahay in Israa'iil ay meel mariso wajiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta ila amni oo Gaza jooga ayaa sharaxaya in ciidanka Israa'iil ay bartilmaameedsadeen 2 gantaalna ay la egteen guri dad barakacayaal ay ku noolaayeen oo dabaqyo ah waxaana waxyeel la gaartay gurigaasi intii lagu jiray dagaalka waxaa lagu nuucnuucsaday dad badan inay dhinteen dad badanna ay dhaawacmeen hasaatee xabad joojinta intay socotay ayaa xadgudbyadaas ay socdaan ciidamada Iran ayaa soo riday mid kamid ah diyaaradaha drone-ka ah ee xogta ururiya gobolka Hormuzgan sida warbaahinta rasmiga ee wadanka Iran ee Maher ay sheegtay burburka diyaaradaasi nooca loo yaqaan orbiter ayaa waxa iska kaashaday soo bixinteeda ciidamada badda ee wadanka Iran iyo ciidamo kale Israa'iil wali wax hadal kama ay soo saarin xaaladaas wararka caalamkana waxa kamid ah tirada dhimashada ayaa sii kordhay oo gaartay 3 qof oo kale 17 kalena waa la la'yahay kadib markii daadad
ay ku soo rogmadeen deegaan ka mida gobolka koonfur galbeed ee waddanka Shiinaha ee Konjang sida laga sheegay idaacadda rasmiga ee waddanka Shiinaha. kadib markii baaritaan la sameeyey ayaa waxaa la sheegay in roobab xoog leh ay dhaceen habeennimadii xalay ahaa, welina ay socoto hawshii badbaadinta. وهجاك محمد وما حسنت هاي داود ياشنا وما حسيهن مركل أيام صور ويننا داود يروح نقول بين فلاقين توركه يوحي وراه دقدقة سكر له هي شيء أي نكوه كأنه قدر حيسين صور هذا مركل داود يعني ولو واحد لصعتان برنامج كي ورك عاوة محمد أن قص عنه يعني مدحونها مريكا كهذا الكيس أي نكأن بقادنا دونالد ترامب وليه هي أنا أيا عدة من ساعة شيء إلا جاره inkastoo nin khabiir iyo wararka soo baxay ay leeyihiinba Mareykanku dib u gurasho ayuu sameeyay laakiin hadalkiisan muxuu ula jeedaa marka anaa go'aaminaya heshiiska madaxweynaha Mareykanka waxa la isku raacay saacadba saacada ka dambaysa waxa uu sheegi doono lama yaqaan hadalkiisana waa isburinaya laakiin sida uu u dhigayo hadalka nin xogogaal u ah arrimaha Iiraan ayaa waxa uu sheegayaa Iiraan in ay weli diyaar u tahay in ay diblomaasiyad iyo wada hadal ka shaqeyso mar walba oo hindisayaal iyo fariimo la kala bedesho dowladda Mareykanku waxay la imaanaysaa buu leeyahay dalabaad cusub oo kii hore ka fog mowqifkeedana isbedel badan baa ku jira. haddana waxaa muuqata waxaan arkayno waxa weeye dowladda Mareykanka inay warar u disunayso la xiriira isfahamka warbaahinta wararka Mareykanka ka soo baxaya aad ayuu uga duwan yahay ama ka fog yahay Iiraan waxyaabaha ay ka hadlayso oo ay ka mid tahay marinka Hormuz sida dagaalka loo soo afjarayo Iiraan xoolihii laga fariisiyay ama ku xanibnaa bangiyada adduunka gaar ahaan Mareykanka iyo barnaamijka nuclearka. Iiraaniyiintu waxa ay sheegayaan waxa dowladda Mareykanka dhankeeda laga sheegayo waxa weeye ma ka tirsana waxyaabaha isfahamka ah ee wada hadallada quseeya ee loo gudbiyey abaanduulaha ciidamada militariga waddanka Pakistan Asim Munir waxayna aaminsan yihiin hadda in hadallada dhanka Mareykanka ka imaanaya inuu khilaaf badan ku jiro iyo cagajiid wuxuuna isku dayayaa in uu dardar geliyo iyo guulo aanan muuqanin inuu sheegto wuxuuna ka leexanayaa waxyaabihii la isku afgartay sida khabiirkaas hadal ku dhigayo. khabiir kale ayaa asna ka hadlay arrimahan oo reer galbeeda oo la yiraahdo Alan Fisher waxaan xusuusanaa buu leeyahay Trump in uu sheegay in uunan aqbali doonin wax ka sokeeya si shuruud la'aana inay Iiraan isu dhiibto. Iiraan dhankeeda wax isbedel ma jiraan inta dagaalku u socday. waxaa cad madaxweynaha Mareykanka hadda inuu cadaadis weyn saaran yahay oo xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda maxaa yeelay cunaqabataynta Iiraan lagu soo rogay hal joogtee in la xiro marinka Hormuz ayaa culays badan ku keenaya oo ascaartii shidaal kor u qaadaya. Alan waxa kale oo xusayaa Trump weli waxa uu wadaa in uu sheeganayo Mareykanka inuu wax walba isku filnaan ka gaaray hase ahaatee ma uu maareyn karo ascaarta saliidda ee suuqyada Mareykanka sii kordhaysa. qaar ka mid ah waxyaabaha laga hadlayo ayaa fajiciso iyo la yaab noqotay sababtoo ah Mareykanka hantidii uu ka hayay waddanka Iiraan ayaa waxa la leeyahay uu soo deynaya. hadda ka hor Trump ayaa ku cambaarayay madaxweynihii hore waddanka Mareykanka Barack Obama markii lacagta Iiraan ka fadhiday qaar ka mid uu celiyay markii heshiiska la saxeexay 2015 Mareykanka iyo Jarmalka, Faransiiska, Britain iyo Ruushka ay ka qayb galeen. hadda laakiin waxaa muuqata uu leeyahay in madaxweynaha Mareykanka uu lacag u ogolaanayo Iiraan inuu u fasaxo arrintaasna waji gabax siyaasadeed ayay madaxweynaha Mareykanka ku keenaysaa ayuu ku soo gabagabeeyay khabiirkan reer galbeedka.
waa gartay waa yahay dhanka qubrada Iiraan haddaynu ka eegno maxay ayaguna ka yiraahdeen arrintan socota nin aqoon-yahan oo la yiraahdo Xasan Axmed Diyaan ayaa sheegaya fursadaha in heshiis lagu gaaro dhex mara Iiraan iyo Mareykanka inay soo dhawaanayso hase ahaatee waqtiga marka la fiiriyo waxa uu ku nuuxnuuxsanayaa inuu dagaal dhacana weli waa arrin furan waxaa meesha ka maqan buu leeyahay in Mareykanka xaggiisa laga xaqiijiyo faahfaahinta la xiriirta dokumentiyaasha heshiiska suuragalka ah Axmed Diyaan ayaa waxaa kale oo xusayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka hadlayay saacado ka hor 50% inay suuragal tahay in heshiis la gaaro 50%na ay dhici karto in dagaalka lagu noqdo marka la tixgeliyo qiimeyntiisaas waxa ay muujinaysaa in ay jirto filasho isla markaasna go'aan xumo ay jirto wuxuuna khabiirka intaas ku darayaa faahfaahinta lagu daabacay wargeyska afka dheer ee Mareykanka ka soo baxday New York Times ee la xiriirinayo in Iiraan saraakiisheeda laga soo xigtay ilaa ay hadda ma hayna buu leeyahay maamulka Mareykanka wax xaqiijinaya arrintaas ka muujiyeen waxaana muuqata dhanka istiraatiijiyada ku dhow dhinaca Iiraan waxay aaminsan yihiin hindisiyaasha la soo jeediyey in ay dan weyn ugu jirto wadanka Iiraan oo ay u badan tahay waxyaabihii ay soo jeedinayso waa gartay waa yahay waynu ku soconaynaa falaqaynta balan eegno war hadda soo dhacay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadda wuxuu soo tuuray war uu ku sheegayo in uusan ku degdegayn oo si hadalka u dhigay heshiis aan u wanaagsanayn Mareykanka waxaana uu sheegay in uu ku wargeliyay wakiiladiisa in aysan jirin wax waqtiga ku socda Mareykanka si hadalka u dhigay isla markaasna ay tahay heshiiska in si fiican looga wada xaajoodo wuxuu kaloo sheegayaa in Mareykanka Hormuz uu xirnaan doono ilaa iyo heshiis inta la gaarayo waa tahay maxamed arrintan waxaynu ku fasiri karnaa dib u gurashadan Mareykanka hadda uu samaynayo sida la soo tabinayo wararka soo baxay dhan waxay tilmaamayaan Iiraan inay si xoog leh gacanta ugu hayso Mareykanka Hormuz khidmadna ka qaadayso maraakiibta maraya shalay maraakiib badan ayaa maray maanta ilaa 33 baa maray maalintii ka horeysay maraakiib ayaa maray Mareykanku wax uu ka geli karo iyo wax uu ka qaban karo lama arko Mareykanka Hormuz Iiraan maraakiibta waxay u jihaysay dhul yar oo ciriiri ah oo xeebeeda u dhow inta kalena meena ayaa dhigtay Mareykanka wax allaaliyo waxa uu sheeganayo iyo wax allaaliyo waxa uu barihiisa bulshada ku qoriyay madaxweynaha Mareykanka Iiraan wax ay ku qaadato lama arko xaqiiqada meesha jirta ayaa waxay tahay madaxweynaha Mareykankana uu ka cagajiidaya in uu lacag u fasaxo wadanka Iiraan oo muddo dheer ka xanibneed lacagtaasna waa lacag balaayiin dollar oo Iiraan ay lahayd tan kale hore ayuu ugu cambaareeyay madaxweynihii Mareykanka ee hore Barack Obama heshiiskii uu la gaaray wadanka Iiraan heshiiskaasi heshiis ka hooseeya inuu qaadanayo ayay u eg tahay sababtoo ah heshiiskaasi wax badan ayuu qorayay oo ay ka mid tahay arrinta nuclearka lacagna wuu fasaxay heshiiskaasi waa ogtahay asagaa jeexjeexay markii xilligii koowaad uu madaxtinimada qabsaday tan kale oo madaxweynaha Mareykanka qoorta ugu jirta ayaa waxay tahay dadka wada xaajoodka ugu jira ma aha dad go'aan qaadan kara wixii ay qaataan asagaa ka hor imaanaya marka wuxuu rabaa inuu asaga go'aanka qaato go'aanka uu qaadanayo hanjabaadda uu ku loreeyay Iiraan waxay ka bedelaysaa lama arko way sii adkeynaysaa ilaa ay hadda wararka soo baxay oo dhan waxay tilmaamayaan in qodobada ay Iiraan maalintii koowaad soo saartay ilaa iyo hadda inay miiska saaran yihiin waxa la laariyay wixii Mareykanka uu watay dhanna miiska laga dejiyay waxyaabaha miiska laga dejiyay waxaa ka mid ah arrinta Hormuz inay bilaash noqoto warar ayaa loo disanayaa Mareykanka dhankiisa ku disanayaan warbaahinta laakiin warkaasi wax ka jira lama arko maraakiibta maraysa badda Mareykanka Hormuz qofka aan khidmad bixinin oo aanan xiriir la yeelanin Iiraan meesha mari maayo hadduu isku dayana markabkiisa waa la duqeynaya ama waa la dejinaya cid looga aabayeelaya ma jirto tan kale oo ayadana aan meesha ka maqnayn sida khabiirada hadalku dhigayaan waxa weeye madaxweynaha Mareykanka laba culays oo waaweyn ayaa saaran
mid waxa weeye dagaal ayuu galay isagoo aanan ogolaansho ka haysan koongareeska dagaalkiina khasaare badan ayaa gaaray waddanka Maraykanka oo aanan afka lagu ballaarin karaynin dad iyo qalab ah inkastoo dhowr goor lacaga laga hadlay. Arrinta kale oo ayadana culayskeeda leh waxa weeye haddii uu dagaal galo wuxuu u baahan yahay ogolaanshaha ama dagaal uu qaadayo ogolaanshaha koongareeska ayuu u baahan yahay. koongareeska ogolaanshihiisana waxaa laga yaabaa inay wax ka yimaadaan. Arrinta saddexaad oo ayadana soo noqnoqota ayaa waxay tahay oo madaxweynaha Maraykanka dhowr goor lagu wargeliyay hal mar kaliya ayuu yiri aniga arrimaha Iiraan ka hadli maayo. waxa weeye mar kasta oo arrintu ay meel xasaasiyada marayso sida shaloo kale ayuu wuxuu soo saarayaa qoraal bartiisa bulshada oo qariidadii waddanka Iiraan oo calankii waddanka Maraykanka dul saaray. waxaasi Iiraaniyiinta waxa weeye waxa ay ka dhigaysaa in aynan Maraykanka hadalkiisa ay waxba ku qaadan. Maraykankana waxay u yaqaanaan Iiraaniyiinta inuu yahay shaydaanka weyn lalama heshiin karo wixii lala galana in ay shaqaynayso shaki weyn ayaa ka jira gaar ahaan madaxweynaha Maraykanka oo mowqifkiisa saacad u bedelaya oo khabiiradii waddankiisa jooga ay leeyihiin dhimirkiisa ayaa wax badan ka dhiman yihiin. Maraykanka dhankiisa ha joogta ee dhanka Iiraan ayaa mid ka mid ah khabiirada ayuu wuxuu leeyahay Iiraan sidee loola tacaamulaa nin ay u baahnayd in gargaar caafimaad la siiyo oo aanan xataa waxa uu sheegayo aanan sixi karayn. waxa ay noqotaba heshiis haddii la gaaro Iiraan dhankeeda bayaan ayaa ka soo baxaya bayaan faahfaahsan ayaa ka soo baxaya. dhinaca Maraykanka dagaalka markii uu dhacayay khasaaraha gaarayna waa qarsanayeen haddii heshiiskan ay qodobada Iiraan dhankeeda in laga daalacdamaana dhinaca Maraykanka oo guuldarro qarsanaya ama aanan maarayn karayn sida khabiirada qaar hadal ku dhigayaan guuldarrada sababtoo ah waa markii ugu horreysay ay waqti yaroo kooban bil iyo 10 maalmood oo Maraykanka ciidankiisi ku qaldaatay oo ku burburay ama ku jabay waa qaadan laayihiin waana ku culus tahay waxaana muuqata sida khabiirada hadal ku dhigayaan in dowladda Pakistan ay tahay dhinaca saddexaad oo kale oo arrintan wax ka dhihi karta laakiin Iiraan ilaa hadda wax warar ka soo baxa ma jiro. waxaana muuqata Maraykanka in uu qaatay heshiis aynan aad uga fog waxyaabihii uu rajeynayay. waxaana muuqata in madaxweynaha Maraykanka uu shacabkiisa u diyaarinayo 50% waa la heshiin karaa 50% waa la dagaalami karaa. waxa weeye weli waa la badhacleynaya laakiin xaqiiqadu malay taaba waa imaanaysaa xaqiiqadu. waa gartay maxamed arrin waxaa soo kordhay xiise leh madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa hadda wuxuu soo dhigay bartiisa bulshada markab Iiraan ay leedahay oo diyaaradda nooca MQ-9 ay gubayso farintaasna uu ku dul qoray. waxaa isaguna hadda soo dhigay barta bulshada uu ku leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo uu leeyahay Iiraan weligeed yeelan mayso nuclear isagoo la taagan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. labada sawirba waa sawiradan caqliga samayska ee computerka lagu farsameeyo ama AI-ga waxa loo yaqaan. maxay arintani ka turjumaysaa iyadoo lagu jiro midda hore ereyga ku yaala waxa weeye adios waxa weeye nabadgelyo weeye waa af Talyaani ama Latina. waxa weeye madaxweynaha Maraykanka hore ayaa loo sheegay inay maskaxdiisa deganayn maraakiibta la duqeynayo oo uu sawirkeeda muujinayo waa maraakiibta maraakiibta shidaalka qaada maraakiib dagaal oo Iiraan leedahay. maalintii ugu horreysay uu dagaalka bilaabanayay ayuu mid ka qayb galayay dhorotus military oo lagu sameynayay waddanka Hindiya uu ku gubay. wixii ka dambeysay dhowr markab ayaa Maraykanka lafkiisa laga gubay oo uunan qirsanayn. waxay ku tusaysaa ayadoo wada hadal iyo soo dhawaasho laga hadlayo waxa uu muujinayo ama uu gacantiisa ka qorayo. tan kale Iiraan weligeedii allaheed ayay lahayd nuclearka Iiraan waa mid nabadeed. Iiraan inay nuclear samaysaneen mar hore ayay ka hadlaysay inta aanan hogaamiyooda ruuxiga la dilin hore ayaa loo mamnuucay
caqiide ahaan iyo diin ahaan ayay u diidan yihiin wax cusub maaha wax uu qorayo laakiin madaxweynaha maraykanka dad ka hadlayay taariikhdiisa nolosha ayaa waxa ay sheegeen maskax ahaan inuu ahaa nin cadaadis badan la saarayay tan iyo yaraantiisa iskuulka inuu waxbarashada ku fiicnayn aabihii u haystay inuu ahaa nin magudbo ah welina wuxuu rabaa inuu adduunka u caddeeyo inuu wax yahay iiraan maraykanka waa ka adkaatay aniga maaha wax dhahaya khabiiradii maraykanka ayaa dhahaya waxaa dhahaya iiraaniyiintii laftigooda ayaa dhahaya waxaa dhahaya saraakiishii dagaalka qayb gala ee la wareysanayo waxa weeye waxaa dhahaya warbaahintii maraykanka wargeysadii maraykanka ayaa qoraya madaxweynaha maraykanka ma aha cidda warka laga sugayo warka cidda laga sugayo waa wadanka iiraan in ay heshiis qaadatay iyo in kale heshiiska ay qaadatay iyo qodobada ay ku qaadatay heshiiskana sida muuqata ku meel gaar ayuu u egyahay in laga dhigo xabad joojinta 60 maalmood lagu daro dhinacyada qaar waxay leeyihiin maraykanku wuxuu rabaa inuu soo abaabulo oo dagaal isu diyaariyo agabkii hore oo meesha tegey oo 30 sano lagu ururinayo waa burbureen cidda kale oo ayadana wax ka oran karta arrintan waxay wadanka dhexdhexaadiyaha Pakistan laakiin ma muuqato inay war ka soo saarayso laakiin madaxweynaha maraykanka bartiisa bulshada qofkii ku xiran macluumaad badan oo ka yaabiya ayuuna horena u soo arkeen waana arki doonaa waatahay maxamed aad baad u mahadsantahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa caawa barnaamijka daawade si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu halkan kasoo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda kusoo biir aynu barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgeli